Yo, I can't wait to share this video. Ilaa hore loo yiri. Xasuusuhu waa cadaabde waxay cadiban nafteede waxa shaqin ruux kasteede qalbiga hayska siin ciyaalde ha xasuus Sidaa darteed marka saaxiib waxaan jeclahay inaan kuul wadaago kana caawi brad in qofta jiritaanka shaki agelin ilowshada iska dhaaf jiritaanka in shaki agelin si ku dhici karta I got you sababtoo ah brother in haddii aad doonaysid inaad hor u socotid waxa muhiim ah wixii hore in ilowdid waxa jira marka waxyaabo qaar aadan iloow karin oo xasuusuhu ku reebayaan sida qof qalbiga ku weyn runtii qofka qalbiga ku weyn yahay brother hore uma socon karta duu ka dhaqaaq mar walba waxaad dareemaysaa culays gadaal ah sidaa darteed marka waxaan jeclaystay inaan kula wadaago inaad jiritaanka shaki gelin ilowshada iska dhaafay sa hore u socotid oo waliba hadafka u gaartid waxaana jeclaystay inaan kula wadaago videogaani sidaa darteed marka adiguna waxaan ka codsanaynaa inaad janaalka quruxdiisa iyo video quruxdiisa noo qayb qaadatid aad bay noo muhiimsan tahay janaalkana si wajir inaan quruxsan ilaa janaalkan waa janaal dhalinyaro adina waxaa tahay daawanaa dhalinyaro sidaa darteed marka waxaa qurux badan inaan iswada garabsano ninka saaxiib akul wadaagi ee kugu boojeen arrimahan kale laakiin waa muhiim qurxinta janaalka yo haddii qof xariir leedin ama haddii qof hadal soo dhaawacay ugu saaxiib waxa wanaagsan marka ugu horeysay qofta qalbiga dhaawacdo saaxiib quraanka dhigeyso allan qofku ku dhaawacayo ma noqonayo qof macna ka fog in kuma dhaawac karo awoodaas ma qof ku dhaawac karo waa qof ku dhow saa darteed marka qofkan ku dhow waa jeceshay hadduu markaasi uu ku geysto dhaawac hadaarata quraanka sababtoo ah quraanku mar social experience lu sameeyay dadka gaalada markii loo daarayo quraanka waxay dhahaan ko ugu horeen relaxing ay ku dareemay saadata marka xaqiiqdu waxa ah quraanka inuu leeyahay relaxing gaalada hadii badareemeen aniga muslimiin ah inaan dareen xaq ay u leenahay marba waa la soconaa quraanku wuxuu ka hadlay qulubteen sida u dejinay labo sameeyay saaxib jadwal degdeg ah yo jadwalkan asmiisan wuxuu ka caawinaa in naftaadii ajaanis ay ku xasuusato u diido sababtoo ah soo jadwalku wuxuu siinaa wax bari ah qabdan saadata marka hadii jadwalkaaga asmiisto ku dhaqaaqdid runtii firaaq ku xasuusatid ma bixiyay si ay u xasuusan in horta aad sameysatid jadwal degdeg ah saadar taas waxa ka caawinaysa in aad dayacmin isla markaasina waa aad naqatid qof markaasi ishaaga alla qof markii ugu horeen qalbi laga dhaawaco wuxuu noqdaa qof markaas kala daad taasoo sabayso inuu qofkaasi xataa mar ahaan jabo saad u jabin isla mar isku day marka quraanka iska dib inaad jadwal sameysatid jadwalkaas oo ka caawinaya ina markaasi asmeysatid wado cusub taasoo ah mid aad idin ku iloow kartid adina isku hay kartid oo isku ilaali kartid isbuucaasi ka guur heesaha Soomaaliga ah sababtoo ah hees walba ahaato dad qaar dhalinyaro inta badan waxay dheystaan hees calaa heesu waxay taabanayaan qalbigaaga ilaa waxa jiro eray ay ku dhihi jirtay ama erayo oo marxaladaas ku sugan tahay ka hadlaan taasoo qalbiga u sii jilcinaaya xageeda saadartan waxa u baahan tahay inaadan dhegeysaninba heesaha Soomaalida ah haddii aad dhegeysanayso heesaha Soomaaliga waxaa dhegeysataa si qaas ah Sharba Boy ilkaas sababtoo labadaba kalama jecla waxa jecel iyo waxa la saadarta marka waxay roon sheegan hadii kala Soomaa heesaadan aqoonin waxa sheegan aad fahmin iska daadhiga iska gash muusiga iska dhiso taasoo ka caawinaysa brother inaadan kala jeclaan doonin qofka ka tagay afar iska fogey waxyaabaha ay ku xasuusinaysid yo waxa jira waxyaabo badan oo ay ku xasuusin laakiin aadan ogeyn sida fargalka kugu jira hadii fargalkan ay ku siisay runtii ugu waa ayuu ku joogtaa waxa laga yaabaa sawiradeeda in mobilka kugu jira ama sawiradeeda in guriga kugu dhigin yihiin taasoo si sabaysa in qofta marwalkaas wax muuqata marwal aad soo xasuusitid markaasna waxay keenaysaa qoftaas marwal aad soo xasuusinaysid in ayada ka fikirtid taasina ma aha saaxiibka asaaranahay wadada asaarana waa in ayada jiritaankeeda shaka agelin si ay u dhacdo midaasi waxa muhiim ah xitaa akoonka caadiga jaatin ku sameynaysin ina hakin karisid waliba sawiradan ku dar oo qashin ku dar statuskeeda Soomaa dhanka iyo hoos moodka gali lambarkeeda magac kugu save karaysa brad waa inaad ka bedeshaa sababtoo ah magacaasi waxa la yaabaa inuu qalbiga ku weynaa magacaasi saadarte marka lambarkeeda hadii xataa qofkaas ixtiraam u haysid lambarka magac kugu save karaysa waa inaad ka bedeshaa oo magac kale u bixisaa magaceedana uusan ahayn macnaha muuqeedaba inaad iska yara qarisid saadarte marka xasuusaheeda walaa ku socdaa farqal kama harayo saadarte marka mar walba soo xasuusan doontaa iska fogey farqalka iska tuur saadarte marka waxa ka caawinaysa midaas ina ayada dhan ay ilowdid waliba sawiradan ku dar oo qashin ku dar iska ilaali cidladu waxay keenaysaa inaad ka fikirtid marxalado kala duwan taasoo kugu suurtagelinayso inaad ayada ka fikirtid sababtoo ah qof markuu cidlo yahay wuxuu xisaabinayaa
wixii la soo dhaafay iyo wixii soo socdaba saadad marka wixii la soo dhaafay waxa laga yaabaa inay ayda saameyn weyn kugu yeelato waqtiyada u socotay waxa laga yaabaa inay kamid yahay qorshahaaga nololeed taasoo aad min hor u socotay xitaa ugu waxaad iska sii ilaalisaa waqtiyada ayda la hadli jirtay waqtiyada ayda la hadli jirtay inay cid noqoto waxay keenaysaa in markaas qofkaas aad tawdid muhiimadeena ma aha inaan qofkaas xasuusitid muhiimadeena waa inaad qofkaas jiritaankiisa ashakalisid si aad gelisid waxa u baahan tahay waqtigaas ayda la hadli jirtay inaad سمسيت أصحاب كله وكله دبنا حتى هذا سمسك حرير كله فجأة رنتي قف كلن بينها وشين قلبي سنة داوعين لكن وشيك إن تاعي قف مركزي اسكب عشان جعل تاسوقع عملنا قف كاسن نقوش هيك فرحان قودرهم أنا وقتي اسكب وجيس إلى وقتي أقول حدي أعلن دريد أيضا حسوسنا إلا أيضا كويل جرت أيضا كقصر سيجرتي أيضا أبغى سمعت إنك قصر سيجر تاسو سبب سبب هذا إنا عاد كل شيء تقلب بدك وش شيء هدف كينا بقى أقول إن هدف كينا أو سبسكرايب صار جنال كا سي أنا إن هدف كينا أو قارني لح يو قيمة شخصية هذا مهم ده إذا أنت أقوين أخاف قبل جرب وحتى هاي مركي قلبي يجوا إنه شخصية دي قيمة واحد يدل واحد أساس من ترى أسود رندرين الحياة إن شخصية هذا أوقات الليفل هو صدق قويت برامات شخصية هذا أخي ميسيت أقول بريت وحتى كسر ليفل كان كده من ليفل كده اسمه أركي سام إلا سكون ليفل متين ومالها معناها أيد مريسو هذا من مريسيت مركز وحوجان سا إن هذا العادي وأتاه ليفل سلا إلا قبله مركي كلت كان ليش قبله إسلام مركو حريسة قف كل حرير كلا يصير سا بس هذا من لو مبان إن مدرس مسجد ناجح عمل أول خنتي براد وحلبها هي إن عادين أسمسيت dhanka kale oo ah shakhsiyadeeda inaad hormarisid shakhsiyadeeda inaad kor u qaadid inaad markaasi by physical isku dhisid by mental isku dhisid by jabkan isku dhisid ilaa sharma boyojer wuxuu dhahay muhiimadu waa inaad jabka cesha maaha inaad kor ka cesha marka waxaa samaysaa brada isbedel nafsiyan isbedel shakhsiyan isla markaa samee taasoo ka caawinaysa brada inaad la kulantid kuwa kale qurux badan taas hadday ahayd mid kugu qurux badan markaa shiidka aad brada ogow markaa baashi yeelatid jeebka ka cayshid ogow markaasi wuxuu ku sii xisaabtamaysaa mis Soomaali inay xagga ahaa doonto saa darteed marka brada intaas waa inta aan jeclays maanta aan ku wadaag qanacsanaanta ay ku xiran tahay like video aan share-tuna ku gaarsiin saaxiibkaaga aad bayna u xiiso gelinaysaa halka gambalaka furshada gambalakana uu yahay midda adin ku muhiimsan ana muhiimsan xaqiiqo markii la hadlo subscribe saar channelka si mar walba isku xasuusnaa brada